subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobada warka Radio Muqdisho. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay booqday qaar ka mid ah suuqyada ganacsiga Muqdisho waqtina la qaatay boqolaal ka mid ah shacabka caasimadda. Munaasabad lagu soo dhaweynayo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuudna waxay ka socotaa magaalada kumeel gaarka u ah Jubbaland ee Kismaayo. wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya hambalyo waxa uu diray bahda warbaahinta gaar ahaan idaacadaha oo maanta u dabaaldegaya maalinta raadiyaha adduunka. kulan looga hadlayo mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Yurubna waxaa lagu qabtay dalka Finland. wararka dibaddana waxaa ka mid ah Masar oo sheegtay inay ka go'an tahay ilaalinta heshiis nabadeed oo Israa'iil ay la gashay 40 sano ka hor. markale ururiyo soo bandhigaysiyaal waa 13 bisha labaad sanadka 2024 qodobada ugu waaweyn warka Radio Muqdisho ayaa dhageysateen oo u diyaar garooba warkii oo fidsan. madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay booqday qaar ka mid ah suuqyada caasimadda gaar ahaan kuwa ganacsiga waxaana uu waqti la qaatay boqolaal ka mid ah dadka shacabka ee caasimadda. Shucayb Maxamed Cali ayaa faahfaahinay. socdaalkan ma ahayn mid hore loo sii qorsheeyay ama dadweynuhu ay sii ogaayeen waxa uu ku noqday mid ay ku farxeen oo ay aad u soo dhaweeyeen si kadis ah ayuu ugu soo galay boqolaal shacab oo halkan ka tukaamaysanaya isna dhinaciisa ayuu ka tukaameystay. waa madaxweynaha jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo isaga oo uu kurgalaya xaaladda amni ee caasimadda dalka caawa booqasho ku tagay qaar ka mid ah suuqyada ganacsiga magaalada Muqdisho. suuqa casriga ah ee Jubba Hypermarket ayaa ka mid ah suuqyada madaxweynaha jamhuuriyaddu oo habeenkan caawa booqday isaga oo kula kulmay boqolaal shacabka caasimadda ah oo si nabad ah uga tukaamaysanaya halkan. waxa uu la kulmay badankood waxa uu ka xog wareystay xaaladahooda iyaguna si laab furan ay uga warrameen. madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale waxa uu dhiirigeliyay isla markaana uu ku bogaadiyay shaqada qaran ee ay hayaan hay'adaha ammaanka dalka gaar ahaan ciidamada ku jiray shaqada isgoysyada uu maray isagoo oo ku ammaanay sida ay har iyo habeen ugu taagan yihiin ilaalinta nafta sharafta iyo karaamada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda Muqdisho. tallaabadani waa mid ka marakacaysa xaaladda amni ee caasimadda Muqdisho oo aad u soo hagaagay bilihii la soo dhaafay kadib shaqo xooggan oo ay qabteen hay'adaha ammaanka dalka oo shaqadooda isugu geeyay sidii ay u ilaalin lahaayeen nolosha muwaadiniinta Soomaaliyeed ee caasimadda dalka ku nool. Shucayb Maxamed, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho. dhinaca kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ku wajahan magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee Jubbaland. Shucayb Maxamed Cali ayaan goor dhaweed ka wareysanay. waa maasantahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo waqti uu hogaaminayo ayaa maanta qorshe yahay inuu gaaro magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland si uu halkaas ula soo kulmo madaxda dowlad goboleedka Jubbaland iyo bulshada reer Jubbaland gaar ahaan reer Kismaayo. safarkan oo hore u soo qorsheysnaa madaxweynuhu uu halkaasi joogo wuxuu kulamo la yeelan doonaa madaxda dowlad goboleedka Jubbaland si looga wada hadlo arrimo dowlad dhiska iyo horumarinta dalka iyo dib u xiraynta dalkaba ku saabsan. madaxweynaha insha Allah safarkiisu maanta ayuu noqon doonaa gelinka dambe wuxuuna gaari doonaa magaalada Kismaayo. waa gartay marka safarka madaxweynaha waxyaabaha ku qotomay sidoo kale maalmaha uu joogi doono macayna weli muddada madaxweynaha halkaasi ku sugnaan doono balse safarkiisu wuxuu u daaran yahay si uu halkaasi ula kulmi lahaa madaxda dowlad goboleedka Jubbaland iyo bulshada deegaankaasi si uu wada hadlo arrimo dowlad dhiska horumarinta iyo sidoo kale dib u xiraynta dalka ku aadan. qabqabada soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliyana waxay ka socotaa magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee Jubbaland. Shirwa Cumar ayaa goor dhaweed uga warramay Cabduqaadir Cali Axmed oo warka soo saaray. magaalada Kismaayo ee kumeel gaarka magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaa ka socda qabanqaabada soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud
si aada waxaa looga dareemayaa guud ahaan deegaanada rasmiga kismaayo iyo kismaayada xafiyad heer sare loo agaasimay qabanqaabadeeda ayaa socdo amniga magaalada aada ayaa loo sugay oo loo adkeeyey ciidamada kala duwan kooda kala duwan ciidamada waxaa socda qabanqaabo si heer sare ah loogu soo dhaweynayo maadaama galimkii dambe ee galabta uu ku imaan doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya magaalada kismaayo isagoo bulshada kaga qayb qaadan doona arrimaha bulshada maamulka dowladda jubbaland la dagaalanka argagixisada iyo arrimo fara badan oo kismaayo looga hadli doono. waa gartay ilaa hadda maxaa ka ogtiya marka inta maalmood oo madaxweynaha joogi doono magaalada kismaayo iyo sidoo kale waxyaabaha kale oo diiradda lagu saarayo kulamada kismaayo ku qaban doono? weli ma la cayimin maadaama uu madaxweynihii maanta imaanayo kulay dalka hor dhici doono laakiinse waxaan filaynaa insha allah inuu imaan doono madaxweynaha gelin dambe maanta asaan warbaahintana dib ayaa lagu ogaan doonaa inta maamulkooda laakiinse waxaa cad inuu madaxweynaha imaan doono ujeedka koowaad u imaanayana ay tahay dardargelinta howlgalka wejiga labaad ee laga furi doono jubbaland iyo isagoo la kulmi doona bulshada qeybeeda kala duwan odayaasha dhaqanka ururada haweenka iyo dhinacyada badan ee ganacsatada jubbaland ku nool. kaasina wuxuu ahaa shirwac cumar oo u waramayey cabdiqaadir cali axmed warsoo saaraha redio muqdisho. wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa hambalyo u diray bahda warbaahinta gaar ahaan idaacadaha oo maanta u dabaaldegaya maalinta raadiyaha adduunka isagoo dhinaca kala sheegay in dowladdu ay adeega warbaahineed gaarsiinayso deegaanada laga xoreeyey kooxaha khawaarijta. cabdirasaaq xaaji saleebaan ayaa faahfaahinaya. wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya daa'uud aweys jaamac ayaa sheegay in dowladdu adeeg warbaahineed ay gaadhsiin doonto deegaanada lagu xoreeyo kooxda khawaarijta al-shabaab si dadka soomaaliyeed loo gaadhsiiyo wacyigelin dhammaystiran. wasiirku waxa uu xoojinayaa kaalinta wacyigelinta bulshada oo ka mid a waxyaabaha loogu baahi badan yahay xilligan la joogo. waajibaadka wasaaradda warfaafinta waxa uu noqonayaa in shacabka soomaaliyeed dhammaantooda laga haqabtiro helista wararka. deegaanada ay argagixisada ama khawaarijtu gacanta ku hayaanna waa deegaano soomaaliya ka tirsan oo shacabka ku nool xaq u leeyihin inay helaan wararka ama dhacdooyinka waddanka ka dhacaya. haddii haatan ay ku jiraan xaalada adagna xaaladahaasi dabcan howlgallo ayaa socda. howlgalladaasi marka ay guulaystaan oo dhinacyadaasi ama qeybaha ay haystaan laga saarana waxa ugu horeeya ee qorshaheena ka mid a waxa weeyaan in halkaasi la geeyo raadiyayaal shacabka lagu wacyigeliyo wararka ay ku helaan isla markaana dowladiska qayb ka qaadan doona. ugu dambeyntii wasiir dabcan hadda warbaahintii way horumartay idaacado badanaa dalka ka jira dabcan maalintan adigoo ku qiimeynaya maxay tahay fariinta aad la wadaagayso guud ahaan warbaahinta soomaaliyeed? fariinta aan la wadaagaya waxay tahay in wariyayaasha iyo dhammaan warbaahinta ay ka shaqeeyaan inay fariimo sax ah oo wax dhisaya u gudbiyaan shacabka soomaaliyeed. shacabka soomaaliyeed waxay u ooman yihiin warar sax ah xaqiiqda ku salaysan dowladiska qayb ka qaadanaya dib u heshiisiinta qayb ka qaadanaya dagaalka lagula jiro argagixisada qayb ka qaadanaya. marka xilli ay kaga baahi badan yihiin ma jirto shacabka soomaaliyeed inay helaan warar xaq ah warar xaqiiqo ah oo sax ah oo ka tarjumaya waaqiciga jira. dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaaliya mudane daa'uud aweys jaamac waxa uu hambalyo u diray bahda warbaahinta gaarka oo maanta u dabaaldegaysa maalinta raadiyaha adduunka. waxaana uu sheegay in raadiyuhu weli uu saamayn uu ku leeyahay adduunyada kaalin weynna uu ku leeyahay wacyigelinta bulshada dad badanina ay ku xidhan yihiin dhegaysigiisa. qolyanaya maalintan muhiimka ah ee loo asteeyay inay noqoto maalinta raadiyo caalam soomaaliyeed. raadiyo wuxuu taariikh dheer ku leeyahay bulshada dalkan ama meelaha ay soomaalidu ku dhaqan tahay. waayo badan oo soomaaliya soo martay isugu jira waayihii wacnaa iyo waayihii adkaaba raadiya qayb weyn ayuu ka qaatay welina uu ka qaadan doona sidaan aaminsannahay. si la mid a waddamo badan afrika ka tirsan oo soomaaliya ku jirto si kastoo horumarka teknolojiyadda uu sii balaaranayo waxaa xaqiiqa ah oo muuqata in raadiha uu weli kaalinta koowaad kaga jiri doono inuu bulshooyinkaasi ka haqabtiro baahidooda helista wararka. cabdirasaaq xaaji saleebaan warbaahinta qaranka magaalada muqdisho. kulan looga hadlayay mustaqbalka dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool wadamada yurub ayaa lagu qabtay magaalada helsinki ee dalka fiinland. sharmaarke abubakar ayaa warbixintan soo diray. waxaa magaalada helsinki caasimadda wadanka fiinland ka qabsoomay kulan socday 2 cisho
oo ay isugu yimaadeen waalidiinka kala yimid wadamada Ingiriiska iyo Sweden, kaas oo looga arrinsanayay mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaaradda Yurub ku nool iyo caqabadaha hortaagan. waalidiinta ayaa isweydiiyey su'aalo ay ka mid yihiin maxaa sababa in caruurta qaar ay ku biiraan kooxo qaswadayaal ah ama aan jid wanaagsan ku socon, waxaana la isku afgartay in waalidiinta ay waqti badan geliyaan caruurta islamarkaana ay la sheekaystaan lana socdaan xaaladahooda nololeed. sidoo kale waxaa Helsinki lagu qabtay koob isdhexgal ahaa oo loogu magacdaray koobka xilliga qaboobaha oo ay soo qaban qaabiyeen midowga ururada Soomaalida wadanka Finland ee MUSEF, waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah ciyaartooydii xulka qaranka Soomaaliya u soo ciyaaray xilligii nabadda, kuwaasi oo furay ciyaarta. waxaana noo furaayo oo noo darbeenayo lejankeena qaran Cabdullaahi Salxaan Eenow. الله وبركاته. وحاوي وحشرفنا أمانة إيران ماشان كوكولانو isboortigana u jeedin waa faa'iido weyn waay isdhaxgal iyo isbarasho iyo wax kasta. marka ciyaartooyda waa inaad soo dhawaatiin, waa in banooni fiican la ciyaaraa, ninkii wax la gaarsiiyey ama jug la siiyo inuu xanaaqin. guddiga qabanqaabada martida kale waxaan idin leeyahay dhammaantiin waa mahadsantihiin sidii wanaagsan jawigan quruxda badan oo tartanka lagu qabanayo maanta. waxaa wafdiga magaalada Helsinki ee caasimadda wadanka Finland ku sugnaa loo qabtay casho sharaf sagootina oo ay ka soo qayb galeen madaxda Soomaalida Finland, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaana guusha ciyaarta ay raacday koox matalaysay wadanka Sweden oo ay finaalka ku kulmeen koox kale oo matalaysay wadanka Ingiriiska oo goolkulaad looga qaaday koobka. waxaana casho sharafta lagu guddoonsiiyey kooxda wadanka Sweden matalaysay koobka xilliga qaboobaha. marti sharaftan inooga timiday wadankeena jaarka Sweden iyo dalweynaha boqortooyada Ingiriiska, madaxda sportiska, gabdhaheena dhammaantiinba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacdal salaan sharaf ay tahay inaan idinkala soo qayb galo kulankan xafladda ah ee lagu soo gabagabeynayo koobkii ururka MUSEF uu qabanayay labada cisho halkan idinka socday. waxaan kaloo hambalyaanayaa kooxdii ku guulaysatay koobka reer Sweden. waxaan kaloo hambalyaanayaa kooxdii qaybta labaad gashay. waxaan kaloo hambalyaanayaa qaybta kale reer Finland oo laga guulaystay. salaan kadib waxaa sharafiya inaan ka soo qayb galay soo dhaweyntii martida iyo sagootintoodaba. marka waxaa idin leeyahay hambalyo kooxda guulaystay, laga guulaystay waxaan leeyahay soo dhawaad kooxdii ku guulaystay ee reer Sweden. idinkana waan hambalyeynaa kooxda kaalinta labaad gashay ee reer Ingiriis. idinkana sidoo kale kooxii kale loo guuleystay sanadkan soo dadaalana rajaynaa insha Allah. horta waxaan u hambalyeynayaa ama aniga isku hambalyeynayo inaan koob ka qaaday. marka labaadna waxaa aad iyo aad ugu faraxsanahay koobkii halkan lagu qabtay ee sanadkii ugu horeeyay ah iyo dadkii soo qaban qaabiyay dhammaan reer Sweden salaana ka wada gabdheena quruxda badan leh. marka hore waxaan idin leeyahay mita kulo kuba iltan waa idin leeyahay. marka ku soo dhawaada aan dhahdeen Finland runtii meel aan ku nasano waa anaga. waxaan u malaynayaa Finland waxaan imanayay dhowr iyo 10 sano waa imanaynay, laakiin ma arag xaflad la mid ah. waxaan rabaa inaan idin sheego runtii horta banooni waxaa ka dhacay banooni sharaf leh. intii aan banooni dheelay oo Finland imanayna banooni ugu fiicnaa ka dhacay runtii. kale hadda wax kale oo badan idin ma dhahay inaad idin hambalyeeyaan meeshaan u soo istaagay. hadda galmudugna ha loo hambalyeeyo, iyadana waa inaan u hambalyeeyo maadaama ay ciyaaraha buris. marka koowaad waxaan u hambalyeynaa kooxdii koobka qaaday saaxiibadeyna ah muddo dhowr iyo 10 sanaana aan Sweden banooni ku wada ciyaarayeen. waxaan leenahay reer Sweden hambalyo. waxaa sharaf inoo ah inaad nagala soo qayb gashaan adigoo dal dheer nooga yimid iyo dadkan sharafta badan ee quruxda badan ee caawa munaasabadan gabagabada koobka nagala soo qayb galay. waxaan leeyahay waad mahadsantihiin. Sharmaake Abubakar, warbaahinta qaranka, Helsinki, Finland. halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. iminkana wararka dibadda. dowladda Masar ayaa sheegtay inay ka go'an tahay ilaalinta heshiiskii nabadeed oo Israa'il la gashay 40 sano ka hor.
dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay warbaahinta Israa'iil iyo Mareykanka ayaa soo xigtay mas-uuliyiinta Masar oo ka digayay in Qaahire ay joojin doonto dhaqangelinta heshiiskii nabadeed oo Israa'iil la gashay 40 sano ka hor haddii Israa'iil ay u guurto ciidan ahaan magaalada Rafah ee Falastiiniinta ama haddii Falastiiniinta lagu qasbo inay u tallaabaan xadka gacanka Siinay. Shukri oo ku nuuxnuuxsaday in dalkiisu uu diidan yahay in si kasta oo ay tahay barakicinta Falastiiniinta ee marinka Gaza iyo baahida loo qabo in Falastiiniintu ay helaan xuquuqdooda, taasi uu ku tilmaamay inay tahay sharci isagoona aqoonsaday dowlad madax bannaan oo Falastiiniintu ay leedahay sida waafaqsan xuduudaha sanadkii 1967. guud ahaana dhegeystayaal warkii reer Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya intaas ayuu ku dhan yahay anagoo timacda idinla socodsiinayay sidaas iyo nabadgelyo.